بسم الله الرحمن الرحيم كسول هذا شبكة سمكو درس وأنا قاعد أفتح عبدالية وعشر كيني أفراد عشر كيني هنا حنكسو قاعدناي من أساسي JSX وحينو إيجي دونا سيدة جافا سكريبتيغا iyo JSX ليسو دحجليا مادام marka hore koodka aynu qorayno uu ahaa JavaScript way noo fududeyn inuu JavaScript isdhexgelino laakiin hadda maadaama aynu qorayno JSX sidee baynu isu dhexgelin karnaa casharkeenu mowduucaas ayuu daaran yahay maanta waxaan iska taatiraynaa qoraalkii hore maadaama aynu kusoo guurnay all JavaScript welina sidii qaabkii saxda ah React weli maynu guurin sida caadiga ah JavaScript-ga iyo marka la isdhexgelinayo HTML-ka waxaa loo dhexaysiin jiray plus concatenation waxa la dhawaad xasuutaan oo hadda tusaale aan dhahno const magac oo aan rabo inaan soo saaro كبعدنا عدينا إنه مجا كده بقى بانو إحنا سوينا string concatenation plus كسرنا ده حيصيرنا ده سيف ده هنو حاجة كسر مقام يسوي لكن inspect element ده هنو كسر كحنو كاركنا سودو وعد تفتح وش دان قاب كنا يلسو ده جرين شري هذا حتى قرب قرال كلو جافا سكريبت هنا ده جرين يسارنا ده شري plus هذا string كله مارك كله سو ده سيف ده هنو هكذا بالكن space وين تبدو ده حيصير qaabkaas waa qaab sidoo kale waxa jiray qaab la isticmaalo oo la dhaho string interpolation adiga oo aan variable-kaagi waxba ka bedelin qoraysa calaamada tilde laba jeer taabanaysa ma aha quotation ka bacdina variable-kaaga ayaad waxa sameynaysaa $sign calibrace so waxa la $sign calibrace ku dhex jira waa JavaScript hadaan save dhahno sidana waa qaab kale oo wax loo sameyn jiray oo waxa la string interpolation oo marka waxyaabaha faraha badan string isku jira iyo variables isku dhex daraysid ayaa sidaan la isticmaalaa JSX kan sidee JavaScript loo soo dhexgelin karaa ayaynu u soconaa marka haddii rabno qaabka in isticmaalno symbol waa lagu fududeeyay labada calaamadood ayaa qoraysaa calibraceska waxa la wuxuu u dhaxeeya waa JavaScript intan waa JSX string tana kana waa JSX laakiin labada calibrace waxa u dhaxeeya waa JavaScript oo sidee ku ogaan karnaa حاليا كنا تسألان مقعة هذا سيف لانو مقعة صباحي welcome to React.js عاد فتح موش دا حتى سبيس كو قاطي سيدو كلا حنكو كان عندنا بقول له قدر يحل حكو صباحي مكان سيف كرينو welcome to React 101 مركا لبدا كاليبريس وحلا لو وحو دحيا وا JavaScript waxyaabaha kala sameyn karta waxa kamid ah conditional rendering 10 dambe u socona tusaalahan button baynu sameynaa oo ay dhahno soo hadaynu button ka save kareyno xagan button yar ba ka soo baxaya oo JavaScript ee gelina xaleenahay dark mode variable ka la dhaho haduu jiro question mark waxa soo saartaa normal hadii kalena wateen operator ka caadiga ah dark ka bacdina waxaan ku xireynaa calibrace ka koodkan waa JavaScript hadan save dhahno variable ka mode la dhaho ma jiro aynu soo sameeyno const dark mode variable la dhaho soo sameeyna true aynu ka dhigaynaa soo hadaynu save dhahno hadda waxa soo baxaya normal mode hadaynu laakiin kan false ka dhigno waxa soo baxaya dark mode marka waa u jeedaan xataa qaabkan aad isticmaali kartaa inta badan teener operators ayaa isticmaalaa waxyaabaha kale ee aynu eegi doono waxa kamid ah style ayaad ku soo dari kartaa tusaale h-kan barigii hore waxa la jiray style ayaa la jiray kadibna style-ka ayaa la qori jiray sidan waxa marka la joogo HTML laakiin hadda maadaama aynu JSX joogno style waa qoraynaa kabacdina object ahaan ayaynu u qoraynaa style-ki marka halkan waxa leedahay haddana mar labaad oo idin sharxi doonaa green soo hadda save dhahno oo jeeda kan green ayuu noqday ama waxa dhigi kartaaba blue marka su'aasha isweydiinaysa waxay tahay waa maxay labada calibraces maadaama aynu JavaScript ku naqaanay calibraceska okay oo halkan aynu dhahaynay sidan oo kale كبعدنا أينو شغينسي symbol وضع لها const ولو أسجري objecti كبعدنا تراهديد color وred وهلونا أتكنت هالكن variable كاجي لورين شري red سو هذا سفكرينو قرالك red أيو نقضي أوكي ميدا بولي بحن كريجا ناتسر brown sorry brown قرالك brown أيو نقضي مركا calibraces كان calibraces كان مركا double calibraces أيو نقضي waa sababta keentay inuu sidan dhahno markaynu doonayno inaynu inline style sheet sameeyno hadhow haddaad xataa background color qoraysid sala leedahay background inuu JavaScript ay qoraysaa background color oo isku dhajinaysaa kabacdina waxa leedahay tusaale ahaan yellow erey walba oo
u dhaxeeyay hyphen waxa ka dhigaysa camel case waa isku dhijinaysaa tusaalaan haddii baadhin top oo kale haddii sidaa loo qori jiray sidana u qoraysaa top taana maskaxda ku hay maadaama javascript oo joogtid hyphenkan waa laga tegayaa waxaa lagu bedelayaa camel case marka hadda waxaynu ku guuleysanay inaynu isdhex gelino javascript-geenii iyo JSX aad iyo aad ay mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq